السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha sharafta maamuska badan oo saaxiibkeen Ismaaciil Diiriye waxaan dib u milicsan doonaa barnaamijkeeni Revida Architecture cashirkiisii 11aad waxaana ku qaadan doonaa roof sida guriga aad u dabooli lahayd kusoo dhawaad cashirka. Marka ugu horeysa design-keena oo soo sameynay foundation-ka, doorska, windowska, wallska wuxuu dhan waan diyaarsanayeen. haddaad rabto inaad si fiican u fahanto cashiradii ka horreeyay dib u soo daawo. roofka halkan ayaa laga helaa. marka ugu horeysa hal maraan 3D-ga fiirino sida ku muuqata. intaan hoose waa soo sameynay oo waa foundation-kii, floor-kii iyo wallskii. roofka halkan buu gelayaa. xaguu roofka ku samaysmaya level 2. level 2 sida aragtid kuma muuqdo design-kii, sababtoo tahay waxaa u baahan tahay inaad 2D-ga halkan ku aragto adiga ahay guriga si aad roofka ula raacdo. haddii saas kugu dhacdo waa weyso, wax kale maahan. waxaad tegaysaa meeshaan ku qoran tahay underlay, formation level 2 ku qoran tahay, waxaa ka dhigtaa level 1 apply dheh, then si toos ah ayaa u arkaysaa design-kaaga. asaga ku raac marka. marka ugu horeyso architecture aad u jooga waxaa qaadataa roofka halkan soo fur. noocyo badan ayuu isugu jiraa. roof by footprint, extrusion, roof by face, stove iyo fascia iyo gutter-ka intaba waa wada arkeena. marka ugu horeysa waxaa noo soo qataa roof by footprint. waxaa loo sameynayaa qaabkii aad u sameyn jirtay floor-ka. horta marka koowaad ugu horeysa edit leh. edit markaad tiraahdo duplicate leh. meeshan wuxuu ku leeyahay roofkaaga 400 mitir. 400 oo millimeter way thickness-kiisa, suuragal maahan. waxaan ka dhigaynaa 0.5 ama 50 millimeter ku dhigo 50 mm. halkan noo soo fur, waxaa ka dhigtaa 0.05. then wax kale ma sameynaysid. sidii waxaa usoo qaadanaysaa roofkaa sameynaysay big hole aa soo qaadanaysaa. roofka siisa muxuu fiican yahay banaanka in loo bixiyo 0.3 si biyaha banaanka hore ugu firdhiyo. kadib ayaa la raacaysaa kilig aa ku dhufanaysaa. ku dhufo you see. kadib waxaad leedahay battery-yahan istaaji. qaabkan ayuu roofkeeni noqday. inay halkan xoogaa yara dheer tahay muddaa slope-kan aad u dheeraysiiye si aad isaga yareyso. slope-kan meeshan waxaa ka dhigataa 22.5. very nice. haddaad rabto oo jeclaysato inay edit garaysana waxbaa ku wareerin, sidiisaas ayaa highlight u saaraysaa. then waxaad leedahay edit footprint. floor-ku la mid yahay. kadib floor 2 tag, level 2 tag,
kadib wixii aad doonto ayaa ka garanaysa. halkaana tiraysaa, halkaana bedelaysaa haddaa rabto. soomada garan rad gudaha soo celinaysa, guduhu kaas wada galaya, banaankiisa soo celi. okay waxaan ku daraynaa gable roofka si aad u samayso. waxaa samaynaysaa kan oo kale hadda axirnaysiki halkaan aan wall ku samaysano. rectangle-kan noo soo qaad. waxaa ka bilowdaa foundation of level 2 level 3 dii sameyno. saan noo noqday. waxaad tagtaa level 2. waxaan sameynaynaa roofka. waxaan soo qaadataa roof pipe footprint si aan gable roof u ekaysiino. marka waxaa sameynaysaa, waxaan soo qaadaa big wallkaas. sidekan iyo sidekan bishop ayaan u sameyn doonaa. dhinacan iyo dhinacana gable ayaan ka dhigi doonaa. waxaa sameynaysaa marka waa wadanaa 0.3 gaas oo overhangiga oo bishopka ahaa. kan baa ku dhufanaysaa. ujeedaa calaamadaas ayaa sheegaysa divine slope-ka. halkaana sidoo kale kelig dheh. markaa tiraa halkaan iyo halkaana laga rabaa inaan marka ku darno. marka halkaas jeeka waxaa ka qaataa overhangiga. waxaan ka wadayaa divine slope-ka. tigta ka qaad. marka ka qaado dhinacaan ku dhufo, dhinacaanna ku dhufo, kadib okay dheh. 3G okay. marka waxaa sameynaysaa halkaan iyo dhinaceedaas kale ayaa waxaa laga rabaa derbigeena kor ku dhajiso. wax kale ma sameynayso. waxaa sameynaysaa derbigaaga wallkaaga ayaad kelig leedahay. attach top basekaas, attach topkaas aad ku dhufanaysaa. then roofkaaga ayaad kelig leedahay. si automatic ugu xirmaya. dhinaca kale soo wareegaysana waxaa la sameynaya scrollkaaga iyo shiftigaaga la qabanaysaa si aad u samayso rotation oo wareejiso. kadib haddana wallkan kelig leh, attach top base ku dhufo. kadib waxaa ku dhufataa roofkaaga. that's enough. okay, hadda wejigaan oo kale aan ka dhigaynaa, aan gable ka dhigaynaa. oo ku dhufanaysaa keliya edit footprint. geeskan yarka kelig dheh. kadib divine slope-ka jeega ka qaad. okay dheh. waa furan yahay soo maaragtay. then attach to the base. attach saa u tiraahid wallkaa kelig sii. attach top. gable roofkana sidaas ayaa loo sameeyaa.